السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواad walaalayaal haddii qof uu soo galana waan sugayaa, haddii kalena xogaa aan siiyo 5 second ama waa ogahay inaad dib ka fiirsanaysin insha Allah because hadda waqtigaa sii dhacaya hadda idin sugo qof. Okay, masha Allah, 5 people, 6. Okay, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر سودو عمر أوالي وما تسنتهاي انت كلنا آدي آذا وما تسنتهين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمال ولا شيء ما في عنتهاي. اوكي أفلو يا علي. وعليكم السلام هذا وما سنتين سودو هذا. الحمد لله باركنو إن إلهي النبض ونوس وكعي وعافماد آخمنو دمانتين أذن كان سيدو كلا إذن رجينا يا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لا كذلك إماذا نسود وهذا 10 كانوا حنوس عنايو and subconscious mind يس شلو وحي قادني عديدة كشلو كجرعاتهين شلو حكاها ليني قابك وconscious كانوا وشقيو iyo garashadeena maaragtay soo jeedo iyo midda maaragtay oo aanan dareemin oo subconscious ka ah aan shalay ka hadalnay waxaan uga tagay yani in maskaxdeena ay wixii subconscious kan anaga aanan controlling ee wax walba ay galaan. waxaa galo kale waxyaalihii yaraantaadii, waxyaalihii xasuustaada, wixii banaanka ah ka aragtay iyo wixii kugu dhacay oo story ah wixii dhan ay aruurisaa. marka maantay casharkayga wuxuu ku ekaan doonaa sidee negative thoughts-ka waxyaalaha xun oo maskaxdaada soo galo iyo qaabkay u soo galaan iyo qaabka iskaga dhicin kartid. marka saas ila socda insha Allah. midda koowaad maskaxdeena aad bay u weyn tahay, wixii aad ku abuurtaana galo. hadda waxaa idin siinaya tusaale ahaan haddii negative thoughts-kaaga uu badan yahay oo markasta soo galo ma ahan inaad iska ignore garaysa aad tirahdid ma fiirina, waa inaad dib u fiirisid aad tirahdid maxay yihiin ereyada isoo galaayo. alaykum salaam. ereyada isoo galaayo maxay yihiin inaad tirahdid waa kow. waxaa laga yaabaa hal waxaa idin siinaa example waan ila fahmi doontiin insha Allah biidhnillah karim. traffic jamka ninka maaragtay booliiska oo cop ama booliiska oo traffic ilaaliyo wuxuu dhex taagan yahay wadada dhexdeeda. maskaxdaada marka waxaa ka hadlaya sida qaabkii negative-kaaga u soo galaysa uu ilaalin lahayd. booliiskaas marka dhexdii wuxuu taagan yahay wadada, dhankan baawura ka imaanaya inta shaqadiisa waxay tahay raali hada shaqadiisa marka booliiskaas waxay tahay inuu baawurtaas isku dhicin. adiga marka shaqadaada taas waa dhexdii taagan tahay, baawura inta ka imaana mid inta waxa waa negative-ki banaanka waxa laga yaabaa inuu ka imaado mid gudahaada inuu ka imaado adiga gudaha ka abuurmay. dhaxdi marka booliiskaas wuxuu ilaalinaa inaysan baawurtaas isku dhicin oo kan dhinacaas u wado kan dhinacaas u wado. adiga marka shaqadaadu waxay tahay markii negative-kaas uu ku soo galo kelmadda ugu horeysa aad dhigaysid aad iskaga celinayso waxa waa laa hawla walaa quwwata illa billah. inaa markas ku soo boodid waa haddaadan ku soo boodin marka negative-ka uu ku soo galo waana dareemi kartaa waxay noqonaysaa inay ku abuurto maskaxdeena way sida aad beer marka wax lagu abuurayo kale waa beertii waxadii aad ku abuurtid markastana wixii aad ku abuurtaa soo baxaayo. hadda ku abuurtid oo kale apple aad tiri aan waxa abuurtay ama beer apple-kaas ma dhigi kartid waxaa rabaa inaa cambo ama moos ama cambo ii noqdo. wixii adiga aad gelisidaa noqonaya. marka waxaa inii siiyey tusaale ahaan ninkaas traffiga ah in adiga aad controli kartid, adiga aad maskaxdaada controli kartid markay kusoo galaan negative thought-kaas. midda labaad reasonka u dhahayna waxaa waaye maskaxda subconscious-ka day iyo maalin ma kala taqaano mana seexato. markastoo aad soo jeedid ama aad hurdid ama hataa haddaa hurdid wixii agtaada kugu daaran way qabanaysaa sida sawir oo kale waxaa laga yaabaa inaa u barata aba qof aad tahay markaa habeenkii seexanaysoo kale ama quraan aad shidatid ama dad waxay shitaan music acuudu billah waxay shitaan wixii aad shidatid adigana waxaa isleedahay waa hurdaa wixii kuma gaaraan maskaxdaada way gelaysaa. marka haddaa wax wanaagsan aad daaratid maskaxdaadana waxaa ogaataa wixii inay gelayaan wixii hore oo ku jiray oo xumaana uu kaaga baxaayo. tusaale ahaan negative-ka waa ogahay inuu yani uuna soo galo laakiin anaga islaam aan nahay alxamdulilah. waana ogtiin Allah subxaanahu wa tacaala inuu noo sheegay negative-ka inuusan wax fiican ahayn maskaxdeena soo galo. wuuna ogyahay inaa ibni aadan nahay markastoo negative-kaas aan ka ahaan karin
وددكي بنانك أما نفس داد أي تهي إلهي سبحانه وتعالى آيات وكدهاي سورة حجرات ودهاي إن كدير هذا إن آذن ماركن آيات اللي بيتوناد waxa xun in malada xun inaad maskaxdaada u ogolaanin waxay taas la mid tahay yes way soo galaysaa malada xun laakiin adiga inaad iska ilaalisid markay soo gashin inaad acuudu billah in nafsadaada aad fiirisid saddex kaloo tiba aan siinaya qaabka oo aad ula dhaqmi lahayd markuu ku soo galo midda koowaad markii aad dareentid inuu ku soo galo maxaa la dhahaa negative thoughtkaas ina ogaatid waaye mid ku yahay ama mid waxbarasho miya oo ay leedahay waxbarashada ay ugu adag ama waxa laga yaabaa mid jirkaaga inaad habi ku ahayn aad tiraahdid aniga ma isjecli aniga qof xuna ahay aniga kana ahay aniga horumar ma gaari kari aniga waxaan ma sameyn kari waxa laga rabaa inaad markaas joojisid aad ku bedeshid wax wanaagsan maskaxdana waa inii sheegay waxa waa adiga control ku ah wixii aad gelisay oo xumaa oo ku soo galay adiga kuma controlshid kan wixii ku soo galay laakiin adigi waxa sameyn kartaa adiga dusha ka waxeen karo oo bedeli karo kan waxa ku bedelaysaa marka mid labaad horta waa ogaatay identify inuu wax xun yahay in yani nooc qaabka uu soo galay oo negative ka uu yahay tan labaad waxa ku bedelaysaa wax wanaagsan sida hadda mid ku sheegay example ka isdaad qof xuna ahay kan waxa dib ugu laabata Allah subhanahu wa ta'ala inuu ibn aadanka uu ka abuuray khalqiga ugu fiican suuratu watiin ina isdhahdid maxaa usu dhahaya qof xuna ahay maxaa usu dhahaya yani wax ma sameyn kari is ogow taasna waxay ka dhigaysaa empower adiga waxay ku siinaysaa xoog energy ku siinaysaa energy-gaas ay ku siiso waxa ku dareemaysaa aniga qof fiican ah wax waa qabsan kara negative kan dib kugu dhacaa firfircooniya yeelanaysa energy-gana waxa ogaataa meeshii aad gelisid focus-kaaga aadid oo energy uu aadayo so mid labaad maskaxdeena maadaama aan ka hadlay aan ku soo celceliyay wixii aad ku abuurto aad ku abuurmaayo negative-ka haddaa adiga u deysid inuu ku soo galo oo aadan iska celinin kelmadaha ku sheegaa laa xawla walaa quwwata aadan dhihin way ku abuurmayaan hadda ka waran dadka beeraleyda oo kale oo beeraha abuurto beeraha rabtaa inaad abuuratid beertii marka abuurinaysid carradii oo kale waxa kaaga soo qaadaya adi example ahaan carradii oo kale waa maskaxdaada mindkaagii waay for example carradii waxa ku shubtay mirihii aad ku shubtayna waa fikirkaagii waay biyaha ku shubtay biyihina ficilkii aad qaaday waa oo gacanta ku qaad biyihii ku shubtay ficilkii aad samaynaysa waay qoraxa rabtaa qoraxdii beerti ma abuurmaysa deesan qorax helin qoraxdina feelinka aad dareemaysa waay so sidii oo kale haddii maskaxdaada wixii aad ku abuurtay I hope ina ila fahanteen sida beertaas oo kale waay maskaxdii waxay la mid tahay carradaas saas ugu fiican carradii waa maskaxdaada mirihii aad ku shubtayna waa fikirka aad maskaxdaada gelisay fikirka markaa gelisay ficilkiina waxaa biyihii aad ku shubi lahayd kabacdina feelinka jirkaaga dareemay jirkaaga markuu dareeman maxaa noqonaysaa energy-ga ka yaraanayo waxa ka niyada ka jabayso hore uma soconaysid markasta xataa wajigaaga laga dareemaa sababtoo ah maanta hadii aad xanuunsatid hadii maaragtay gudahaada jirka uu ku xanuuno dhakhtar aad u tagaysaa dhakhtarkii aa ogaanaya laakiin hadii maskaxdaada ee saas ay ku xanuunsato maskaxdaada hadii saas ay ku xanuunsato dhakhtar ma ogaan karo adiga ogaan kartid si aad negative iskaga bixisid marka waxyaalaha tibka idin sheegay ugu fiican waxa waaye in waqti si maskaxdaada waqti yani oo aad meel afrista tiraadid intee negative ka iga imaana waxa laga yaabaa in book soo qaada xataa ay qalin qor ereyga ku soo galo ereyga markuu ku soo galo aad qortid opposite-kiisa qor waxa laga yaabaa inuu ku soo galo maskaxdaada oo kale aniga adduunka ugu damiinsanahay waligay 15 sano ama 16 sano wax baranay meel ma gaarin بدل قلنك قاضو كبدل صوبته دينتنا ونو وكشها وحيالها ما عرفت وحي حن مركو كسوقل وحي وناكسن أو كبدشد مدة كلب عربوك لنا إذن لو ذا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث لقوري أو إن جابر بن عبد الله أو كل هاي حد مننا أذنكم ملها وناجين حد مننا أذنكم ملها وناجين ملها مركوان نيجاتيف ثوت كنيجاتيف كاس الدون كانوا ودرين آخر هذا ودرين هاي adduunkii sababta ugu dareen waxa waaye hore uma soconaysid waxa laga yaabaa qof ina aragtid banaanka ku aragtid asi qaldan u aragtid ilmahaagi hatta hadduu ka bato sida beerta saddex sheego kale hadii ay noqoto oo aadan waliga Allah ka fikirin ina iska bedeshid hadda waa ogtiin ina iska bedeli kartin laakiin hadii aadan iska bedelin intuu abuurmo wuxuu noqonaa sida beertaas oo kale geedu ka soo baxayo
ilmahaagi gurigii ninkaaga wax walba waxaa u arkaysaa negative because energygaagi dhanaa yaraaday caafimaadkaagii dib u dhigay dhibaatooyinkaas oo kale u leeyahay soo raali ahaada ma usoo jeedin waxaa soo qorteen waa i fahamteena u maleynaa marka waxaa idinka waaninayaa negativeka maadaama qaabkaas uu yahay qaabka ugu bixi kartid mindsetka today haddii aad tahay qof wax rabo inaad baratid waxbarashada aad u jeceshahay maskaxdaada inaad ku adag tahay waa inaad samaysid wax la dhaho goal setting goalkana beriyaan ka hadli doonaa okay halmarmad soomaalida oo dhan waxay qabaan cudurkana tv-ga okay tv-ga ka wada u maleynaya haddaa tv ka wadid yes aniga kula hadlayo tv ma daawado waxyaalaha waxaa waaye maskaxdeena sawira wax ku qaadataa ma ahan keliya waxna la dhaho waxyaalaha aragtida arkay sidoo kale maskaxdaadu galaa haddii wax xun oo indhahaaga u sii deysid wixii xunaa galaayo haddii meel wanaagsan maskaxdaada aa u jiididna wixii wanaagsanaa galaayo marka tv-ga waxyaalaha ugu daran waay maanta mediaha waxay u sameeyaan oo kale in maskaxda ay kaa qasaan oo horumar aa gaarin way ogyihiin maskaxdan in wixii la geliya ay qaadato marka wax kale waxaa jiro inaa idinla wadaago affirmation la dhaho affirmationkaasna waa sida inaad nafsadaada kalsoonideeda aa siisid oona markastana kusoo celcelisid ereyada hadda kale aa replacement ku samaysid aniga qof xuna ahay ku bedel tijaabi maanta hadda berri aa sugu imaan insha allah tijaabi maanta wixii laga bilaabo in aad noqotid ninkaas traffiga maaragta oo booliiska dhexda taagan inaa maskaxdaada u noqotid oo wixii inta kaa soo galo oo xun aad tiraahdid okay haddaan sii daayo baabuurkan ku dhaca hadduu inta kan uu yahay adiga maanta waxaa la rabaa inaad noqotid in control aad noqotid baabuurkoo kale markaa wadaysid isma wadi kara adigaa giirka wada soo maaha marka waxaa lagaa rabaa giirkaas inaad saas gacanta xoog ugu dhigtid negativeka markuu soo gala aad joojisid ila isma wadaa baabuur keligiis ma socon karo negativekana waxaa waaye maxaa la dhahaa inaad habit sida dabeecadoo kale midda kale ibni aadan haddaan nahay waxyaalaha maskaxdeena maadaama ay wax walba qabato oo ilaahay uu naga abuuray khalqiga kan ugu fiicnaa waxaa xooga saarnaa wixii noo daran oo wixii anaga nafteena u xun waxaa ka mid ah wixii noo fududna oo yacni simple ahna waa wixii noo wanaagsanaa opposite-kii aadnaa ma aadno wixii noo fiicnaa so wixii xun waxaa ka mid waxaa laga yaabaa naftaada inaad dilaysid inaad ogtahay sigaarka inuu kuu xun yaho kale ama balwad ama wax aad leedahay ama balwad waxaa ka mid tv-ga inaad badanaa fiirsatid inaad habeenkii soo jeedid waqtigaaga ku dhamaysid wax aan adig kuu fiicnayn kabacdi jirkaaga wax gaarsiinaya caafimaadkaaga wax u dhimaa waxaad dareemaysaa anemiga kugu ridaa waxyaalo badan uu kugu ridaya laakiin wax simple ah haddii wax simple-kana aad samaysid maalintaada aad diyaarsatid subax markaa soo kacdid aad ilaahay ku xamdisid aad tiraadid ilaahu adaan kugu mahdiyey oo buuggaaga aad soo qaadatid maalintii waxaa sameyn lahayd aad ka fikirtid waxaagii oo dhan aa organize samaysatid haddaa rabtid inaa ilmahaaga waqti la qaadatid waxbarashadaada haddaa samaysatid waana daygaaga wuxuu kuu noqonaa maalin easy ah timekaaga aa ku hurdi lahayd timeka wax ku samaysan lahayd laakiin opposite-kii aadnaa opposite-kii oo ah wixii nagu adkaa wixii fududaana ma qaadano وعليكم السلام وحاهي والباقاتو اوكي ما سمين كري waxaad u sameyn karin maskaxdaada buuxdo ani ahaan ra'yigay sababtoo waa arkay anagoo igu dhacday maskaxdaada haddii negative ka buuxdo waxaa laga yaabaa waxyaalo aadan forgive aadan cafinin ay ku jiraan nafsadeena fiiri dadka ibni aadanka ah waxaa laga yaabaa inaa qof wax u qaaday negative waxaa ka mid ah kaliya ma ahan inaa adiga nafsadaada ka fikirtid inkastoo topic kale ay tahay negativeka dadka kale haddii wax cuqdada u qabtid cuqdadaasoo kale iyadana negativeka diba ku dhigaysaa hore uma soconaysid iyo inaa adiga nafsadaada cafinin because qalado badanaa kaa dhici kara adduunka waxyaalo kalaa samayn kartaa nafsadaada inaad dib u fiirisid aad tiraahdid waa ku cafiye xataa magacaaga sheeg intaad dib isu fiirisid waxaad tiraahdaa qalad wuu iga dhici karaa ibni aadan ahay nafsadeedii waa ku cafiye markaad tiraahdid kabacdi wax walbo adduunka wax walbo aa qabsan lahayd waa ku furfurmaayaan ladan marka aniga wax yar igu dhacaan maanta dhan wuu igu soo noqnoqdaa run waay muxuu kugu soo noqnoqonaya mataqaanaa
fikirka caloosha ay xanuuno yes wuu leeyahay wuxuu kugu soo noqonaa negativeka subconscious keena wado tan maskaxdaada garashada hore awood ma lahan marka waxaa laga yaabaa wixii negativeka ahaa inaa weli ku dhex jirto ama inuu yacni wax oo tusaale ah ku dhex jirtid ama wax oo trick ku sameynayo kale waxaa laga yaabaa in still dad isleedahay asxaab la tahay oo dadkiina adiga aysan weliga aysan wax ku dhihin wax wanaagsan sameey oo adiga ku dhex jirtid waxna rabtid inaad samaysatid negativeki marka labadii clash isku noqonaa laakiin haddaa negativekaaga aad dib u dhahdid okay negativekan wax uu ii taraayo ma lahan hadda wixii laga bilaabo haddii aad attentionkaas siisid waa ka bixin kartaa sababta wixii anaga attentionka siisid oo ma focuskaada gelisid wixii enerjigaaga iyo waxaa uu ku noqonaya aadayna u fududahay qaabka u bedeli lahayd berina waxaa ka hadli doonaa ereyada affirmationka aad dhihi lahayd hadduu ilaaha idmo mana aha wax adag adiga xukumo sida ninka traffigaas uu xukumo kale ku celceli kelimada laa xawla walaa quwata illaa billah markastuu maskaxdaada soo galo jaanis ba siinin haddii jaanis siisidna sida beertaas oo kale kugu noqone beerta hadday kugu noqotana waxaa waaye ay sida hadda aad dhehayso kale ayadaa ku kontaroosho oo wixii markaa qabsan lahayd wixii tabar ma lihid maskaxdaadii soo tuuraysa same area soo tuuraysa ama waxaas ma sameyn kara damiina ahay ereyga kugu soo celcelinaysaa cuqdada maxaa isaga dhaafaa difaaca cuqdada waxaa iskaga difaacaysaa one nafsadaada horta cafi kow nafsadaada xaqay kugu leedahay nafsadaada negativeka iyo wixii ka buuxay waxaa laga yaabaa inaad markasta blame isku samaysaa dhahdid waayo horumar u gaaray aniga qaladkayga tahay hadda fiir haddaa qof qaladka geshid waa u tegaysaa qofka waxaa leedahay cafi saa hore ugu socotid oo aad ama asxaab aad tihiin qaladaa ka gasho kale erey xunaa tiri oo waxaad tiri qof xunaa tahay oo kale qofkii kaa xanaaq waa u tagta waa cafisay nafsadaada marka iyadana sidoo kale waa inaad dib ugu noqoto aad tiraahda nafsadeydii waa ku cafiyey ka bacdina cuqdadaas way ka baxaysaa waxaa sababta cuqdadiyaa xoog nafsadaada ku jirto cabdicasiis tagabaayo xanuun laga qaado waayo everyday waan isticmaalaa haddii guriga la jooga haddii kale camal in cuntada cunay xataa a lot of problem igu haya mobilka okay nima okay insha allah au call ya bye cabdicasiis wax yar ma fahmin tokaya haddaa igu soo celin kartid haddaa kusoo celin kartid walaal insha allah negativekana maaragtay wax cuqdad ama haddee taa ama wax kugu soo noqonaya okay self talk ma ka wadaa self talk haddee tahay adiga waxaa ku dhahay nafsadaada cafi hadalada nafsadaada aa kula hadashid hadalada nafsadaada aa kula hadashid inaad ku bedeshid wax wanaagsan haddii ay yihiin wax xun sababto waxaa leenahay laba voice laba wax ama waxa u yeeri waxa dhigi kartaa oo kala daarabta waa angel oo ilaahay noo soo diro oo na ilaalinayo midna waa shaydaan dheh okay shaydaankii marka wuxuu rabaa inaad wax wanaagsan qabsan wax walba oo qabsanaysid inuu ku dhaw wax xun waaye wax qatar waaye waxa laga yaabaa inaad business furatay okay dadka businesska hadda la hadla business cusub furatay businesski marka waxa ka sii fikiraysa inaad ku dhici doontid inuu xumaan doona ka fikiraysa adoo meesha gaarinba taasoo kale marka waa negative togaas waa negative kaasa wuxuu ku leeyahay waa whisper oo kale wuxuu ku dhahaa meeshaas wax xuna ka dhici doona ma gaari kartid subconscious kaaga marka wixii uu qabana wixiina waxa kugu dhacay sidii kugu dhacayo sababtoo ilaaha ka barid inuu xumaan kugu dhici doono maskaxdaada gelisay laakiin hadaa maskaxdaada aad sida kale u bedeshay aad tiraahdid aniga future-ka ma xukumo wixii hadda aan jooga xukumi karaa now sababtoo hadda adinka idin la hadlaya kama fikiri kari wixii dhici lahaa ilaaha gacanta ku hayo so haddaa taas aamintid businesskaagin aad tiraahdid aad tawakkul dhahdid oo niyadda aad gashitid businesskayga wuu ii fiicnaan doonaa subconsciouskaaga wuxuu qaadaa businesskayga wuu ii fiicnaan doonaa markasta waxa aad arkaysaa wax kuu wanaagsan ama irida ilaahay kuu furaayo marka waa mahadsantihiin walaalayaal waqtigeeni waaye hadduu ilaahayna berri waxaa ka hadli doonaa gratitude affirmation labada maalin waxaa ugu talagalay inaa subconsciouska ka hadlo haddii wax su-aala qabtiin iisoo sheega
ayaan xumaan haddii lagugu sameeyey mar walbana ay kugu soo noqnoqdaan sida baad ugu gudbi kartaa okay ayaan xumaan haddii lagugu sameeyey fiiri aniga hadda xumaanta okay qof hadal ku dhaca ama gacan uu ku qaaday ma cafinin horna uma socon waxa ogaataa adiga nafsadaada isdishay qofkaas ilaa wixii ku dhahay they just gone way ka tageen laakiin qofka xanuunka ku nool oo maalin iyo habeen uu ku soo noqnoqonaya maskaxdiisa adiga waay soo inaad sii deysid haddii aad rabtid noloshaada inay horumarto walaashii daacadana kula hadlaa wallahi aniga dad badanaa jiro oo xaqiga galay dadkii markaa fiiriyey waxaa yidhi haddii aan cuqdad u qaado oo aan ka xumaado nafsadeedii aad dilay maalinkan ka bixiyay qalbigeygana waxaan dareemay inaan release ahay inaan ayagana cafiyey oo anigana nafsadeedana cafiyey sababta haddii aadan ayaga cafin oo aadan ka bixin calooshaada aadan si nadiif uga bixin weligaa horumar ma gaaraysid ayagana dadka way ku dhaheen hor u socda maba kuu ogow adiga dhibka nafsadaada ay kugu leed ay kugu qabanayso آمين وما سنتهين رملة واكو سلام هورر واكو سلام دمانتين خير ادي رجينا ان شاء الله كفكروا كله وحن انا فعل قادين وهذا قابك اني شيء ku dhaqmo maskaxdiina sida hadda yani idin ku dhahay markasta ay soo gasho ku dadaal sidii adiga control u noqon lahayd sida ninka baabuurka gacanta ku wada ahaan lahayd midda koowaad midda labaadna beertaas abuuraysid ha filanin in ku dhasho cambo haddii aad apple ku abuurtay sababta wixii nafsadaada aad gelisid waaye saddexda kiina ha ilaawin kow ogow ereyga afka kas ereyga ma aragta negative-ka labo replace waxa ku sameysaa wax wanaagsan ku bedel is ogow inaad tahay qof fiican saddexaad xataa ha isla yaabin hana isdhihin dadka waxay dhahaan haddii aan dhaho qof wanaagsan ahay afka aad ka dhahdid ama xumaan lagu arka ama lagu arka inaad waalan tahay ma waalnid haddii ka waran aad tiraahdid affirmation ko aan ka hadli doono kala hadeertan waxaa la rabaa in gudihiina waa ka hadashay oo nafsadaadii diba negative kaaga gelisay qofna waxaa laga yaabaa inuu kugu dhahay ama guriga kugula nool ku dhahay meel ma gaaraysid horumar ma gaaraysid marka waxaa la rabaa ereyada sida ducooyinka u qaadayso kale erey waxaa jiro lagu bedelo aad tiraahdo inta muraayada hor istaagta aad tiraahdo qof fiican ahay nafsadeedii waa ku jeclahay waa qaban karaa wax walba oo yani aan effortkiisa geliyo oo tawakulna aan dhaho ilaahay taladiisna aan saarto marka waa maasantihiin khayr idin wada rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu I hope inuu idin anfacay